soo dhawaada channelkan waa Somali Bitcoin. Channelkan waxaa lagu talagalay dadka afka Soomaaliga ku hadlaya adduunka jooga meel kasta oo joogan adduunka ay doonayaan. Waxaan ka wada hadlaynaa markuu dhinaca Bitcoin marayo inuu hoos u dhacay inuu sare u kacay iyo dhinaca cryptocurrency-ga. Hadda channelka ku cusub tahay like subscribe taabo si qofka loogu faa'iideysan karo waxaan wada baranayno. aad u mahadsantihiin. maanta cryptocurrency waa ka Bitcoin baa ugu sarreeya, Ethereum baa ku xiga, Ethereum 2 ka cusub baa ku xiga, Tether USDC, BNB waa kuwaas. marka waxaa aragtaan maanta haddaan laagno USDC coinku waa kaas uu yara fiican yahay maanta. haddaan eegno Bitcoin-kiina maanta hoos buu yaro dhacay. وانا idin calaamadiyay marka bitcoin waa ka hoos buu yara dhacay maanta. wax kale maaha, waxa weeye economic waxa uu maraya markasta ku xiran tahay. waxaan la ictiraafay weli maaha, marna sare buu kacayaa marna hoos buu kacayaa. marka haddana isaga ugu sarreeya markuu isugu fiicnaado waxaan wada fiicnaanayaan way isla wada socdaan. marka hadda aragtaan wadinka marka ka baalkan leeyahay Bitcoin waa saan ka sheekaysanay. haddana hore u dhageysan waana dhageysataa waxaan video horaan duubay markaan ka sheekeynay dhinaca Bitcoin-ka iyo Bitcoin wuxuu yahay. marka Bitcoin waa gold asset, marka waana currency marna hoos buu dhacay sare buu kacay. waxa ku xiran tahay dhinaca economiga. marka wuxuu la tartamayaa dollarka iyo euro-ga wuu la tartamaa. marka waxaan waa asset class isaga iska leeyahay maaragtay. marka xaggan waxaan idin tusiyaa ma doonayaan inaan istiraadaan waxaan iibsanayaa waxba maaha, taa lagama hadlayo. waxaan waxa weeye education purposes. there is no we don't do no financial advice, only education purposes. marka adiga Cardano waa ka, Solana waa ka, Dogecoin mid kastaba wuxuu gaar u leeyahay. Dogecoin waxa lagu talagalay wax la kala iibsado waa meme coin baa la yiraahdaa. waa kan idinka arka marka waxaan way badiyay. waxaan marka information u baahan yahay, laakiin sida oo Bitcoin aan galayna maanta waanaga galnay. Bitcoin waa adiga maanta markaan eegno day trade-ka maanta one day oo xaga ku taalo one day waa adiga arka hoos buu yaro dhacay maanta. wuxuu lose gareeyay 1332 buu lose gareeyay. taas wax kale maaha, waxa weeye Elon Musk oo xagga dhinaca Tesla baa yiri Bitcoin-kiisu iibinaya. wax kale maaha, wuxuu doonaya inuu cash buu doonaya inuu flow buu sameeyo. marka taasaa economic yara taabatay. marka laakiin sida kale sidii beriyahan buu fiicnaa waa aragtaan weegan aad buu fiicnaa. waa ka uu kacayo 20,000 oo dhudhow buu gaarayba. marka waa taa marka isagoo 16,000 dooraad ahaa. marka wadinka arka marka waxaan marna hoos buu dhacaya marna sare buu kacaya. laakiin maanta warka cusub ee degdegsan waxa weeye marka ninka Elon Musk haysta company-ga Tesla baa yiri waxaan doonayaa inaan taydi iibiyo because cash flow baan u baahanay. cash flow ka dhamaatay. marka wax kale ma wax kasta qaali garoway dadka marka qof walba lacagtiisa yar bilaashanaya. marka cryptocurrency waxa education badan u baahan weeye oo waxa future-ka aad la isticmaali doono oo wax lagu kala iibsan doono. marka waa taa waan u sanoqonaa chat-kan waan dib u eegaynaa. laakiin marka daimka aragtaan regularly Fed-ka oo ka shaqeeya Federal Reserve Bank-ga xagga America waxay lahaydeen waxay ka baqayeen inay sameeyaan another major interest rate hike. marka waxay doonayaan interest rates-kan ay sare u kacayaan si inflation ku yaraado. marka sana awalga wada hadlay inflation waxa weeye waa goods-ka. markuu dad biibsanaysid oo biyo cagada laga sameeyay dhaqaale garoobaan marka waan idaadoon biyaha diibinaysa dhaqaale ka dhigta Soomaaliya. marka waa inflation baa marka wax kasta kacaya. marka taas wax kale ma dagaalka socda waa wadooniyaha aan badda marayn ee Red Sea iyo meelaha marayn oo alaabaha Kenya bay ku xiran tahay iyo petrolka la joojiya dhinaca xagga Ruushka. marka wixii baa isla qaali garoobay. marka hike bay sameynayeen marka inflation marka u yaraado. marka saa la sheegay another major interest rate like is coming from the Federal Reserve here in 5 ways it could affect you bay ku leeyahay. marka waxaas oo dhan Bitcoin bay taabanaysaa. ninka waa ka waxaan ka shaqeeya hawshiisa uu tahay waa ninkan. marka waa marka waxaan Bitcoin way taabanaysaa. marka waxaas oo dhan waa economy way isla socdaan. marka waxaas oo dhan Bitcoin way taabanaysaa. marka waxa lagu leeyahay week soo socda lagu leeyahay next week waxaan akhriyaa next week the Federal Reserve is likely to raise by another 3/4 marka waxa laga hadlay 0.75 marka xaga lagu qoraba. marka waxaas oo dhan Bitcoin way taabanaysaa. taa waxaa keenaysa dadka marka meesha lacag geliyeen wax kasta qaali noqotay lacag xuddoon dib u isticmaalaan Soomaaliya.
marka waxay isleeyihiin wax ku iibsan lahaayeen marka waxaas marka lacagtay geliyeen bitcoin investan waa ka fikirayeen inay mustaqbalka ka macaashaan lacagtaas dee marka dib u celishanayeen si ay reerahoodii waxooda dadkooda u taraan amba iyagu ay bilalkooda ku bixiyaan marka waxaan waa wada economy waxa wada socda markuu mid kac midna wuu dhacaa waa siday tahay laakiin xagga howsha marayso howsha meel fiican ma marayso bitcoin way ku yaraa economiga way yara adkaadeen marka duu yara adkaadeen bitcoin wuu taabanaya marka bitcoin iyo cryptocurrency marka hoos buu yara yaala iyadoo dee waa niga la soconay iyadoo ahayd adigu lacag gaaraysay dee 50,000 markii sanadka dhammeedkii sanadkii hore 2021 dhaafay aad u soo dhacay waxaas wax kale maaha waa dagaalka socda wada hadalnay dagaalka socda iyo dhinaca economiga marka waxaan waxay badan tahay wax la kala barto iyo wararka cusub in laga wada hadlo marka waa taa marka raggana marka waxay ka mas'uuliyiin economiga inay ilaaliyaan marka maanta waa la soo qoray waa published today marka qofka sana soo qoray marka waxaan waxay ka mid tahay inay dadkan waxay isleeyihiin economiga ilaaliya marka interest rate marka sare u kiciyaan waxaa imanaysa dadkii marka bangiga joogin dadkii marka bangiga qabanayaan lacagta maahanayaan interestka adigu ribadii baa lagu sii qaaligareynaya markaasaanay marka interest waa ribe marka interestkiiba lagu qaaligareynaya markaasaanay marka bangiga u qaban lacagta waa maahan marka dadku ma doonayaan inay bangiga lacagta kala baxaan marka waxay doonayaan waxaad haystaan inay shaqaystaan mid kala doonaya waxaasoo dhan marka sare la kaciyo marka dadka lacag ma maahan karaan markana maahana dee caadi oo shaqo tagayaan maaragt marka waxaas interest rate-ka sare lagu kiciyay dhinacana waxaan oo dhan bitcoin-ka way taabanaysaa marka waa inaan kusoo noqonay chatkii haddana bitcoin waa taa waan idinka arka marka maanta waa 41% bal uu leeyahay dhow waa down maanta 22% marka hoos buu dhacay marka taasuna iminka waa kasii ruxmaaday markii hore sideed markii hore wuxuu mariyayba 8,900 wuxuu mariyay markaan ku wada limka waa sii dhacay marka waxaan marna hoos buu dhacay marna sare buu kacay wax ku xirantay economic marka haddaan eegno day chatka maalinta chatka aragto maaragta marka wuxuu ahaa 20,000 dhow buu ahaa markan 18,000 dhow iyo wax buu noqday marka waxaan waa wax ciyaar la qaata ma wax lacagta la geliya maaha waa waanad wax u baahanta education waanad isbartaayo waad fahantaa laakiin waa mid baan ku sheegaa hadduu si fiican ku sii socdo kan uu fiicnaado waa investment qaali bay ku noqon doontaa ku fiican marka waxaan waa taa laakiin financial advice maaha waa only doing education purposes waxaan kala baranayna marka waa idinka arka marka chatkan waa chat adag marna sare buu kacay marna hoos buu dhacay waa idinka arka taas wax kale maaha wixii stable maaha wixii wax degan maaha because wax saa la ictiraafay iminka maaha wuxuu waa wax wali cusub wuxuu marayaa dhinaca internetka beri marka cusbay buu marayaa marka waqti buu baahan yahay lagu ictiraafo marka waa taa marka chatka waan eegnay waa taa mid kalan eegno maanta haddana ka wada hadlo marka ethereumna waa kan ethereumna waa kasba wuu dhacay waa 82% ma staten laba gena wuu dhacay waa 6.2% marka intaas waxa maanta markuu hoosta tagay laakiin markii uu saara noqday haddana marka waa same process one day chat kan eegna haddaan week hore eegno week hore xagu da week hore joogo ka safina marka maaragta week hore waxa 900 dhawaan marka intaas u maraya maaragta laakiin marka intaas uu soo dhacay marka oo labada casho ugu dambeeyay marka laga wada hadlay waxaan sheegay markii raggii qariibiyeen weyn lacagta badan haystay marka waxaan wax u baahan yahay samar badan dad invest ka sameynaysid wax gelinaysid waana siisaa ugu yaraan 5 sano 4 sano ugu yaraan 2 sano waana investment waana goal waana haysataa maaha lacag baan geliyay meel ka tajiriya maaha marka waa taas maanta ka wada hadalnay aad ba maasantiin haddana ku soo dhawaada like subscribe taabta dad channelka ku cusub tahay maalin kasta waan video cusub ban meesha keenaya say uga faa'iideysataan wax la wada barano markasta waa soo dhawaadihiin Somali Bitcoin aad ba maasantiin saaxiibayaal